عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا سلام أصحابتا وأنا أحمد عبد الولي أصحابتا مادام أنكو بلانسانين أفليد ماركتين كورسيدا دي إنان بلاونو سيدا عوان كان أوي هايبا أفليد ماركتين for beginners تاني وحان كبلاابا دونا سيدا قفك بلاابا أهرب إنو ماركتين سمية أفليد ماركتين سمية ستايبسك أمي تلابوينك أي تاي إنو راعو مركا كوباد حاجيك بلابيسا iyo sidoo kale xageedan ka bilaabaynin maadaama ay koorsadeen ka hadli doonto affiliate marketing sida awgeed waxaan tilmaami doonaa meelaha aad mari doonto iyo meelaha ay tahay inaad ku sameeyso affiliate marketing sida caawirta maxaa la yiraahdaa kelmaddan affiliate marketing maxay tahay haddaan si fudud u dhigo inagoo aan wada kale iyo wareeg kala marin affiliate marketing macnaheedu waxa weeyaan badeeco qof uu leeyahay in aad soo qaado oo aad tusiso qof kale kabacdina uu iibsado qofkaas oo aad ka hesho commission ama khidmad aad adigu ka hesho khidmadaas ayaa ah wadadii aad u mari lahayd ama qaabka aad ku heli lahayd dhaqaale aad ka sameynaysid affiliate marketing marka maadaama online market uu yahay badeeco si physical intaad u soo qaado aad qof kale u goynaysana ay jirin maxay tahay wadada aan ku heli karno annaga oo aan badeeco qof leeyahay soo qaadin aan qof kalena u geynin sideen ku heli karnaa inaan sameeyno wadadaas ida ah in badeeco qof uu leeyahay qof kale tusino qofkaas uu iibsado anagana aan commission ka helno marka waxa fududay arintaas waxa la yiraahdaa affiliate networks ayaa jira oo fududay oo loo maro oo iyagana ay badeecooyinka yaalaan marka waxa ay ku sahlantay link aad ka soo qaadaysaa badeecadaas linkigaas ayaad la wadaagaysaa asxaabtaada iyo cid kasta oo iibsan karta wada kastood kula wadaagtaba marka affiliate marketing aan rabnay inaan sameeyno kow waxaad u baahan tahay number 1 waxa la yiraahdo inaad ku biirto affiliate program join affiliate program number 2 waxaad u baahan tahay inaad promotion ku sameyso badeeco macnaha inaad badeeco soo hesho kadibna badeecadaas aad promotion ku sameyso oo hormariso oo aad suuqayso promotion marka laba qaab loo sameeyaa mid aad ku hormarinaysid qaab free ah iyo mid aad u helaysid marinaysid qaab badeecada aad lacag aad ku hormarinaysid number 3 waxaad u baahan tahay inaad soo hesho traffic waa source-gii ama wadadii aad u marin lahayd badeecadan wadadii aad marin lahayd oo ay ku heli lahayd dad iibsada kaas ayaa traffic-gaas isaga waa labo oo waa paid iyo free traffic iyagana dhamaan mid walba arki doonaan paid-ka sida logo promote gareeco iyo marka ay free tahay wadada loo mar labada waan arki doonaa sidoo kale waxaad u baahan tahay qodobka afraad waa inaad ka heshaa commission-kii macnaha waa inaad heshaa badeecadan qofka aad u suuq geysay commission-kii markuu iibsado aad ku lahayd waa inaad heshaa waayahay affiliate networks-ka marka aan rabno inaan suuq geynta badeecooyinka aad suuq geyno waxa kamid ah kuwan hadda meesha kaaga muuqanaya affiliate networks ayaa la yiraahdaa marka affiliate network-yadan way badan yihiin laakiin hadda waxaan halkaan ku soo qaatay afar kaliya midka ugu horeeyo ma aha midka ugu sareeyo ugu fiican ma aha JVZoo midka labaadna waxa la yiraahdaa Warrior Plus midka saddexaadna waxa la yiraahdaa Digistore 24 midka afraadna waxa la yiraahdaa Clickbank midka ugu isticmaalka sahlan waa Clickbank laakiin maadaama asxaabta inta badan Soomaali ay joogaan Clickbank waxa uu kamid yahay bangiyada ama naqdwaaqyada aan Soomaaliya iyo wadamo badan oo lamid ah aan laga isticmaali karin macnaha isdiiwaangelinta markaad isdiiwaangelinayso ayaad isticmaali kartaa wadooyin kale iska luqluuq dad ay maraan wajta laakiin mar waliba wax walba waxay ku wanaagsan yihiin sida ugu toosan in loo maro marka Clickbank waxaan hoos u mariyay isaga ugu isticmaal sahlan laakiin waxaan ugu hoos mariyay waxa waaye maadaama asxaabta Soomaaliya ay u badan yihiin isaga waa adag yahay isticmaalkiisa macnaha ma ku suuragalay inaad ka samaysto account adoo Soomaaliya joogo in qof meel kale joogo oo Soomaaliya joogo inuu ku sameeyo ka bacda sida ku isticmaasho oo wadooyin kale isla firkiisa ay tahay inaad marto waa wax jiro marka affiliate network-yada way badan yihiin laakiin intaan waxaan u soo qaadanay waa kuwa ugu sahlan ama ugu caansan oo dhaqso loo garan karo affiliate network-yada aan garanayno waayahay kuwan marka waxay u baahan yihiin sidoo kale qowdada in la isdiiwaangeliyo in wada la maro mid walbo sida loo maro wadada la maray sida la isdiiwaangeliyo xabad dul istaagi doona hadii la raali ka noqdo maadaama hordhaca iska ahayd asxaabtana balantii aan u sheegnay ahayd inaan bilaabo doono affiliate marketing course
hordhaceeda ay tanoo tahay marka aad rabto inaad affiliate marketing noqoto waxyaabo badan oo ay tahay inaad maanka gashta ayaa jirta suuqan waa suuq aad u lacag badan marka hore aad ku beertana isla markii waxa ku sawirmaya lacag aad u badan iyo wadooyin kale kuwaasoo mid walba ay ku sii dhiibaysa mid kale laga yaabo adoon maalinkeed wali $1 aan wali soo helin iyo waxa laga yaabaa in aad bilooyin badan soo goysto taasna waxa keenaysa sugnaan la'aanta macnaha suuqan wuxuu u baahan yahay hal niche macnaha hal suuq inaad target sato oo aad ugu saarto isaga aad isku daydo inaad ka meel keento free traffic ku suuq geysa iyo sidoo kale paid traffic oo mid lacag bixinaysa ku suuq geysaaba qaabka online lacagaha looga sameeyo way badan san hore u soo aragnay waxa kamid ah wax la yiraahdo CBA laakiin hadda maanta waxaan ka hadlaynaa CBA ma aha ama CBC ma aha isaga waxaan ka hadlaynaa waa affiliate marketing and promotion ku sameynayno badeeca uu qof leeyahay taas kalena waa nooc kamid ah promotionka laakiin wax yar way ka duwan tahay oo isaga kaas waxa lagu helaa in qofkii shaqadii lagu diray aad qabato tusaale ahaan waxa lagu dhahayaa application kan gaarsii wadan heblow qof kasta oo isdiiwaan gelin intaasaad ka leedahay qof kasta oo clicks intaasaad ka leedahay qof kasta oo isdiiwaan geliyo oo lacag bixin intaasaad ka leedahay laakiin kan waa ka duwan yahay kana waa waxaad hormariso oo maxaa la yiraahdaa aad adiga hormariso oo macnaha qof kale u gudbiso oo suuq geyso wixii laga iibsado commission inta badan aad u sareeyo waliba qiimihiisa laga helaa suuqyadu way badan yihiin waxaan aad aga reebay oo aad loo isticmaalaa waxa la yiraahdo eBay iyo Amazon eBay Amazon iyo waxaan aga reebay waxa weeyaan way ka duwan yihiin qaabka arabna inaan u marno iyo xogaa shuruuc ahaan laftirkooda kuwan way ka sii duwan yihiin qaabka wax loo suuq geeyo qaab kamid waxay qasab tahay inaad wax ku bixiso sida awgeed kuwan waa ugu sahlan oo dhaqso qaadan karna haddana kuwan waxay ku sahlan yihiin dhammaan badeecooyinka ay iibiyaan waxay u badan yihiin software ee wax wada digital u baahan laakiin kuwaas Amazon ama eBay waxyaabo waxaad u baahanaysaa oo physical products ay iibiyaan oo u baahan in toos qofkii iibsanay lagu geeyo marka affiliate marketing insha Allah taala koorsadena halkaas ay naagsi socon doontaa bilowgeeda intaas aad niyad ku haynaysaa koow inaad ku beertaa affiliate marketing program inaad ku beertaa ka bacdina badeecad soo heshaa oo horumar ku sameeyay horumarsa badeecada inaad soo hesho way cid iibsan lahayd ka bacdina aad ka soo heshaa commission affiliate marketing qaybta xigto insha Allah taala waxaan ka bilaabaynaa sida aad u sameeysan lahayd akoon aad uga sameeysan lahayd bangiyadan sidoo kale waxaan ashirkan kun ku xiga ka dhiga doona oo ka hormarin doona sidaan hadda aan ku sheegay inaad isu diiwaangalis kuwa kale oo ka sahlan macnaha affiliate network kale oo iyaga toos aad iyaga laftirkooda suuq geyn ku sameynaysid oo iyaga laftirkooda horumarinaysid promotion ku sameynaysid oo iyaga markaad horumarisid adoon badeeco ka soo qaadin ba iyaga laftirkooda aad ku helaysid commission ayaan ku bilaabi doonaa hadii la raali ka noqdo maanka ku hay intaana meel ku qoro si step ah mid walbo u dul istaagi doona sida loogu beero oo program aga mid noqoto sida badeeco loo helo oo loo horumariyo products sida traffic loogu helo iyo meeshii la suuq geyn lahaa commission ka saa uga heleed iyo intuu leeg yahay mar waliba taas ayaa ku xig doonta waan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh page ka duusan leeku saarna ku share gareysna ku subscribe ku saarna saaro si marka ugu horeyso aan soo gelinaba aad u hesho ashirka insha Allah taala